asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada kulmiye janaal. maanta waxaynu wax ka baran doonaa sida loo edit gareeyo video adigoo isticmaalaya applicationka loo yaqaano KineMaster, weliba adigoo isticmaalaya teleefankaaga smartphone-ka ah. fadlan haddii aadan janaalka subscribe saarin weli, fadlan subscribe saar. cashirka la xiriira si aad ula socotid oo aan soo tabi doono maalin kasta oo khamiis ah. marka ugu horeysa applicationka waa kan, click baad ku siinaysaa, kadib si horizontal baa usoo baxaya. videoga aad doonaysid wuxuu ku jiraa galeriga, so then waxaa aadaysaa galeriga, calaamada pluska baad taabanaysaa, then waxaad taabanaysaa empty project gaad taabanaysaa, click ku siinaysaa, then waxaad taabanaysaa meesha loo yaqaano media browser-ka, kadibna videoga aad u baahan tahay baad soo gashanaysaa. okay, islam youtube-ka aadaynaa, videoga u baahannahay baan ka dooranaynaa. okay, videogan baan dooranayaa, kulan Manchester United ee ciyaarayso kale tig baan siisanayaa. okay, then maxaa sameynayaa marka videoga waxaan doonayaa qaybahan u baahnayn inaan iska jaro kale. for example, waa kulan Man United ee ciyaartay, ayay qaybtan ugu horeysa waa iska jaraynaa videoga inta ciyaarta bilaaban ka hor ah ilaa inta doonto baa jari kartaa, laakiin ciyaarta marka kick off tahay baad deynaysaa si marka ciyaarta bilaabato. inkastoo kick off aysan jirin, waxaan ka bilaabaynaa ciyaarta markay bilaabatay, waxaan iska jaraynaa qaybtan. okay, qaybtan baan rabnaa inaan iska saarno oo bilowga ciyaarta ah. then videoga click ku dul siinayaa, calaamada markay soo baxdo jaalaha ah, then waxaan taabanayaa maqasta, kadib waxaan leeyahay trim to the left of the play ahead. dhinaca leftiga jiro dhan baa jaraya oo bilowga ah. mataqaana waxay jiraan dhinaca bidix, wixii bilowga oo dhan baa jaraya. okay, waxaa ka bilaabanaya video mesh buu ka bilaabanaya marka. okay, calaamadaas baan saaraysaa tigta, kabacdi waa already waa samaysay. haddaa qalad samayso waxaa ka noqonaysaa meesha backta waa ka noqonaysaa, videogii wuu ku dhammaystiran yahay. hadduu videoga kuu saxnaa, calaamadii waa ka noqonaysaa meeshii aad ka jartay videoga waa ku noqonaysaa. then okay, qayb dhexa rabaa videoga inaad iska saaro oo kale, meesha aad u baahan tahay geysanaysaa, daqiiqaday ahayd ilaa ay sakanadii ahayd baa geysanaysaa, laasay 10 sakan oo kale. intaana doonaya inaan iska jaro hore. okay, intaas baa doonaysaa inaad iska jartid dhexda. okay, click baa ku dul siinaysaa, kadib meesha baa tagaysaa, split baa leedahay, qaybtan kale baa imaanaysaa ilaa intaas baa rabtaa inaad goysid. trim to the left yaa leedahay, intii dhex baa iska saartay. okay, labadan video laba video bay noqdeen, laakiin hal video buu ahay, qaybta dhex baan ka saaray. okay, waxaad doonaysaa inaad qaybta dambe aad iska edit garaysid, ayadana sidoo kale click baad ku siinaysaa. waxaa rabtaa video inta u dambeysa inaad iska goysid. waxaa ku sameynaysaa qaybtan dambe baa imaanaysaa, intaan celebrationka iska goynaysaa dabaaldega ah. marka qaybtan dambe intaa doontid baa jaraysaa. ciyaarta way dhammaatay, firimbiga baa yeeray. markuu firimbigu yeeray, waa kaas ciyaaryahanka kubadda darbeynaya. firimbiga markuu yeeray ciyaaryahanka kubadda iska okay, firimbigu markaanu yeeray, then waa iska jaraysaa, qaybtaas waa iska goynaysaa. waxaa leedahay trim to the right, inta dambe waa iska jaraysaa, ileen midig bay jiraan mugta, inta midig jirta baa jaraysaa. trim to the right kaasaa ku dhufanaysaa, way go'day. sarka sidaa baa loo jarjaraa videoga qaybta dhexe. okay, meeshaan baa hadday video ka jarnay. okay, qaybta hore iyo waxaan sameynay inaan video kala jarnay. meeshaan baa imaanayaa, meeshaas baa imaanaya video baan rabaa kale inaan soo geliyo. waxaan sameynayaa tig horta baan saarayaa, isbedelkan ku sameeyay baan saxayaa. then video kala rabtaa inaad soo geliso qaybtaas dhexe. okay, intaan dooranaynaa videoga waan dooranaynaa. ujeedaa videoga hadday qaybtii hore bilowga ahayd iyo tig baa siinaysaa, qaybtii hore video kala soo geliso ciyaar kale ah oo ciyaar kale ah. ujeedaa. okay, sidaas baa samaysay, laakiin waa qaybaha qaar aa u baahan tahay wax dhexda hadaa bixisid wax kale ku bedeli kartaa, abranka keeni karaysaa. okay, waxyaabaha basic aan ku qaadan doonaa insha allah. then markuu videoga intaas kuma marayo, videoga kala rabaa laga bedelaa oo kale. hadda qaybtan oo kale videoga waxaa ka dhigi kartaa speedkiisa, mataqaana waa badi kartaa, waa yare kartaa, normal baa ka dhigi kartaa, meeshaa ka bedelaysaa. sidoo kale waxyaabo kale ka bedeli kartaa oo ay kamid tahay waxyaabaha muhiimka aan ka hadlaynaa. kalarka oo kale waxa weeye waa bedeli kartaa, saa doontaa ka dhigi kartaa. then sidoo kale click baa ku dul siinaysaa saa ogaatid, kadibna mataqaana color adjustmentigan xataa waxa weeye contrastiga oo kale iyo maxaa la yidhahdaa brightka iyo waxyaabahaas waa ku yaray kartaa, waana ku saaidi kartaa hadba saa doonaysid. iyo sidoo kale maxaa kaloo samayn kartaa sound, codka dhan waa ka gaabi kartaa videoga, boqolkii sir waa ka dhigaysaa, waayo codka aad doonaysaa inaad dul saartid ama music ama wax kale.
then codka ka gaabi kartaa dhib ma lahan adiga sameynaytaa videoga kale ku dulsanaysaa waxa doonta baad ka sameynaysaa videoga waxyaabaha ugu muhiimsan baynu ka dooranaynaa then click baa siinaysaa waxyaabo kale way jiraan insha Allah casharo kale aan ku qaadan doonaa cashirkan waa cashirkii koowaad aan ku baranayno sida loo edit gareeyo videoga okay maxaa kaloo sameyn karnaa music oo kale cod baarta inaad ku dartid meesha aad ugu dareysid codka baad tagaysaa hadaa bilow kaga dareysid bilowga videoga baad tagaysaa hadaa meel dhex kaga dareysid meesha cod kaga dareysid baad tagaysaa kabacdina cod inta ka doobi kartaa hadaa u baahatid laakiin soundigan oo kale waad ka dooran kartaa codka u baahan tahay marka hore waxaa sameynaysaa codka waad dhageysanaysaa marka codka dhageysatid kadib baad mataqaanaa dooranaysaa okay codka doontid baa mataqaanaa dooranaysaa okay codkaas oo kale play baad leedahay waa isku hubinaysaa codka rabti inuu yahay inuu cod kale yahay then calaamad balaaska taabanaysaa already codka uu ku jiraa kabacdina tigta saaraysaa already codkii uu kugu jiraa videogiina waa ku kaa then codka sidaa doonta waa u jari kartaa waa gaabi kartaa waa dheeray kartaa ma fahantay qaybo kamid ah codka kale waa jari kartaa qaybo kamid ah waa gaabi kartaa sidaa doonta waad ku sameynaysaa sida editka codka kale marka aad aragtaan markaa kale ku samaysid split baa dhigi kartaa trim baa dhigi kartaa qayb baa jaraysaa hadda for example oo kale trim to the left way for example split baa ku sameynaysaa waa kala goynaysaa qaybtan dhaxaartaa codka inaad u daysid maxaa la yidhahdaa videoga split baa haddana leedahay qaybtii aad dhaxa aad iska jaraysaa waxaad ku sameynaysaa waxa la yidhaahdo qaybtan delete aad tagaysaa waa iska delete garaynaysaa qaybtan dhex wax coda ma lahan okay qaybtaa doontaa cod ku darsan kartaa codka uu qayb kamid ah iska jari kartaa ayada dhan waa iska jari kartaa sida videoga loo edit gareynaya codka u edit garay karaysaa okay waxyaabo qalad aad soo qaadatid oo kale calaamada delete aad taaban kartaa wax qaldan aad soo qaadatid calaamada waa horta marka hore kaliya baa ku siinaysaa kadib calaamada delete waa dooranaysaa marka qaabkaasaana cod loogu daraa videoga mataqaana codkana loo jarjaraa videogana loo jarjaraa kadib maxaa xiga wax casharo badan baa jira insha Allah aynu ku qaadan doono qaabka videoga waxaa la yidhahdaa loo saaro calaamadaha oo kale hadda calaamada Man United baa kor ku aragtaan ay saaran tahay iyo ciyaarta inay hal iyo eber ay tahay ee first half ay marayso ciyaar Man United ay ciyaarta bay ahayd kuley Aston Villa ay la ciyaartay okay Man United ma taageero balse waxa weeye videoda hay bay kamid ahayd soo saas baa sameyn kartaa marka waxaa jira qaybtan oo kale layerska qaabka loo isticmaalo textiga qoraalka la duldhigayo videoga kale qoraal waad u sameyn kartaa effectiga oo kale waxyaabaha soo duldhigi kartaa media oo kale sawir waxbaa soo dul saari kartaa laakiin insha Allah cashiro kale aan ku arkaynaa sida qaabaha kaas kale loo sameeyo laakiin waxaan rabaa inaad fahantaan waxyaabaha basic ah sida video loo jarjaro codna loo dul saaro video codkiisana waa aragteen waa iska gaab so intaas waxaan rabnaa inaan ku darno arrin la xiriirta qaabka videoga marka qofka uu dhameeyo kale muxuu ku sameynayaa okay videoga markaad dhameysid codkii wax walba aad soo saaratay ka soo qaad codkan baad dooratay oo ku dartay meeshas baa kaga dartay kabacdi tigtaas baa saaraysaa then maxaad doonaysaa videoga inaad save garaysid maxaa sameynaysaa calaamadaas baa tagaysaa kabacdina save to the gallery baa leedahay videoga quality aad doonaysid baa dooranaysaa kanoo kale haddaad dooratid videoga size-kiisa wuu weynaanayaa kanoo kale haddaad dooratid sidoo kale video size-kiisa waa sida hore uu ka yaraanayaa laakiin video size-kiisa weyn yahay haddaad dooratid hadhowdii dhib waxaa noqonaysa inaad upload garaysid waayo waxaa rabtaa inaad social media aragtid ama youtube-ka ama aato whatsapp-ka ama kia aato laakiin inta badan waxaa la iska doortaa kuwa aad u yaryar baa la doortaa video mataqaanaa si hadhowdii upload garaynta ay kugu xumaanin aysan waqti dheer kaga qaadanin hadda waxaan dooranayaa medium quality-ga okay waqti buu qaadanaya wuxuu sameynayaa exporting marka application saan kugu furnaado intii ku socoto waayo wax ku qoran please do not switch to another application kale inaad furtid iyo inaad meeshan skip ka dhahdid baa la diidaya oo tiraahdo waxyaaba kale game baa ciyaaraya inta uu soo degayo inaadan bedelin shaashada sana iska ahaato okay baad leedahay kabacdin already waxa aad rabtay gallery kugu jiraan ama santiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh